kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkan aynu maanta uga hadlayno 5 arrimood oo aad ku gaari kartid higsigaaga nololeed. daawada haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelkeena soo booqatay waxaa kaa codsanayna inaad saartid subscribe iyo like. haddaynu u gadagalno mowduuceena waxaynu ka hadlaynaa 5 arrimood oo aad ugu muhiim ah gaaristaada higsigaaga nololeed. mid koowaad waa alla ka cabsiga iyo akhrinta quraanka. alla ka cabsigu waa hidaayo iyo hanuun eebbe subxaanahu wa tacaala uu ku galado addoomihiisa uu jecel yahay. waa akhlaaqiyaad wanaagsan oo eebbe subxaanahu wa tacaala uu ugu deeqo qofka mu'minka ah. sidoo kale akhrinta qur-aanka kariimka oo aad joogtaysid iyo fahamka qisooyinka ayaa kordhisa alla ka cabsiga qofka. qisooyinka ku jira qur-aanka kariimka ah waxay leeyihiin saameyn aad u weyn, sidaa daraaddeed ayaa qur-aanka kariimka ah marka 3 qaybood loo qaybiyo qayb ka mid ah waa qiso, ujeedadu ka dambeysana waa in ay tusaale u noqoto aadamaha oo ay ku cibro qaataan. haddii qisada laga sheekeynayo tahay qoom hore oo la halaagay, waxaa looga dan leeyahay ka digtoonaada idinkuna in aad martaan dariiqii ay kuwaasi mareen mid la mid ah, haddii kale waxaa idinku dhici doona wax la mid ah waxa ku dhacay qoomka. haddii laga hadlayo qisada ku jirta qur-aanka kariimka qoom wanaagsan oo saalixiin ahna, waxaa looga dan leeyahay inaan ku dayano oo aan dariiqii ay mareen mid la mid ah marno. haddaba haddaad akhrido biology, chemistry, physics si niyad ahna aad u akhriso, waxaad fahmi daraasaadka la sameeyay qofaha loo adeegsado daraasaadkaas. balse haddaad akhrido qur-aanka iyo axaadiista si niyad sami ku dheehan tahay, waxaad ogaan doontaa xaqiiqda nolosha, waxaana ku kordhi iimaanka qalbiga oo wata xasilooni naxariis. qodobka labaad ee aad ku gaari karto higsigaaga nololeed ayaa ah yool cad ama hadaf ku degsan. daawaday haddii aad leedahay yool cad ama hadaf aad doonaysa in aad gaadhid oo waqtigaaga maskaxdaadaba aad u horeyso, waa sidii loo baahnaa. balse haddii aad tahay mid aan lahayn hadaf uu naftiisa u hurayo, ogow inaad dariiq khaldan ku joogto. xaaladda aad ku jirtahay kaaga baahan tahay in aad bedesho oo aad naftaada u dejiso hadaf cad oo qoran oo hogaaminta naftaada dhanka guusha. marka guusha laga hadlayo maaha mid fudud oo cid walba si fudud ku gaari karto. haddaba waxa ay muhiimad u yeelatay ayaa ah in ay ku kacayso qiimo aad u sareeya, qiimahaas oo aanay goon karin dadka intiisa badan. guusha dariiqeedu waa mid qodxa badan yaalaan, waa dariiq kufayso aad kacayso, waa dariiq caqabado badani ka hor imaanayaan. guuleystayaasha dhabta ah ee nolosha waa kuwa sameeya wuxuu raali ka yahay alle subxaanahu wa tacaala, ma ahan kuwa iska nool naftooduna ay hogaamiso. haddaba waxaa loo baahan yahay ayaa ah in aysan naftuna hogaamin. qodobka 4, waqti geli waxbarashada. ka horumarka gaadha dhammaantood waa dad waqtigooda, maalkooda, muruqooda iyo maskaxdoodaba geliya shayga ay doonayaan inay guul ka gaadhaan. haddii higsigaagu yahay in aad cilmi ka mid a culuumta aad guul ka gaadho, marka aad naftaada wada siiso ayaad badh ka mid helaysaa. waa sida haddii aad doonaysid in aad dhaqaale abuurto, shaqada waa in aad awoodaada oo dhan iskugu geysaa. qodobka 5, samirka badan. qofka noloshiisa waxaa soo food saara xaalado nolol oo adag oo kala gedsan. xaaladaha qofka soo mara waxaa ka mid ah kuwo wanaagsan oo farxad leh, kuwo yaro adag iyo waqtiyo aad u daran. sidoo kale dareenka dhibaatada xaaladaha kala duwan waa dareen qofba uu si u dareemo, sidaa daraaddeed xaaladahaasi kala duwani waxay noloshu ku abuuri karaan dareeno aan fududeyn. haddaba hanti lagaa dhacay, shaqo aad weyday, arsaaqada oo kugu yar, mushkilad aad u taagla-dahay iyo dhammaan caqabadaha noloshu waxay kaaga baahan yihiin samir oo keliya si aad bal wax wanaagsan u hesho oo ilaahay uu kugu bedelo kheyr. mar walbana xasuuso arkaanul iimaanka qodobka ugu dambeeya, wabilqadari khayrihi wa